ciidanka qaranka qaybta saddexaad ee gobolka Sanaag ayaa magaalada Ceerigaabo ku qabsaday xuska munaasabadda 28 guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Munaasabadan oo ka dhacday barxadda miiska saraakiisha oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka Sanaag kan degmada Ceerigaabo, taliyayaasha ciidamada kala duwan, madax dhaqameed, cuqaal iyo cuntubyo ka tirsan ciidanka qaranka iyo saraakiishooda. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay taliyayaasha ciidamada kala duwan, salaadiin, madax dhaqameed, maayar ku-xigeenka degmada Ceerigaabo oo aad u hambaliyeeyay xuska sanad guurada ciidanka qaranka. guuradii aasaaska ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee la aasaasay. Hambaliyo. Taya ciidan tira aan yarayn xoogaga istirshay tignikada xadkeena ku taxan tuure iyo beebe iyo qoriga tirada ku rida shiishka lagu tuuro iyo taangi aan cidi marayn turugyadu yaalo soo tacabka aad qabatay iyo taladii nuux maaha. waxaa leeyahay ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka Sanaag iyo dhammaan ciidanka qaranka hambaliyaan leeyahay. ciidamada qaranka aad baan u hambaliyeynayaa, madaxda iyo taliyayaasha ciidamadana waa salaamayaa. waxaan leeyahay maalin weyn weeye, hambaliyo. mar labaad iyo mar saddexaadba waxaanu idin leenahay ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan gobolka Sanaag hambaliyo. waxaan aad iyo aad u hambaliyeynayaa mar labaad iyo mar saddexaad ciidanka qaybta saddexaad ee gobolka Sanaag ka howlgala iyo dhammaan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland meel ay joogaanba waxaan leeyahay hambaliyo. runtii farxad bay noo tahay ka golo deegaan ahaan degma Ceerigaabo ahaan inaanu maanta kala soo qayb galno ciidamadayada qaranka ee ku sugan khaasatan degmada Ceerigaabo sanad guuradoodan. waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba hambaliyo. ciidamada qaranka mar labaad iyo million times hambaliyo. aad iyo aad baan u hambaliyeynaynaa ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland sanad guuradoodii ka soo wareegtay. waa hambaliyo maanta aan u hambalyeynayno haddaanu nahay ismada gobolka Sanaag. ciidanka qaranka aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. waan hambaliyeynayaa ciidamada Soomaaliland gobolka Sanaag jooga. 94tii asaaskii qaranka Soomaaliland wuu tanaaday meel fiican uu marayaa. aad iyo aad baan uga hambaliyeynaynaa gaar ahaan ciidanka saldhigga saddexaad iyo taliyahooda Rashiid Cali Dhigale waxaan leeyahay hambaliyo. taliyaha howlgelinta ciidanka qaranka qaybta saddexaad ee gobolka Sanaag ahna kusimaha taliyaha gaashaanla dhexe Rashiid Cali Dhigane oo halkaasi ka hadlay ayaa ka sheekeeyay aasaaska ciidanka qaranka. haddaynu sharax ka yara bixinno ku aasaaska ciidanka qaranku wuxuu ka bilaabmay shirkii Boorame dawladdii labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee lagu soo aasaasay gobolka Awdal. ciidanka qaranka guul baan u rajaynaynaa meel walbay joogaan sanadkiisana inay ku gaadhaan barwaaqo bashbash iyo horumar ayaanu u rajaynaynaa insha Allah tacaala. ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse oo halkaasina hambalyo uga diray ciidanka qaranka gobolka Sanaag. ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uma baahna tafaasiil badan. waxaa idinkaga filan Soomaaliland waxay tahay iyo halka ay caalamka ka taagan tahay iyo nabadda ay ku naaloonayso waxa saldhig u ah ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. waa Cabdirasaaq Xaaji Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliland, magaalada Ceerigaabo.